قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر الأطهار نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر. وقصة حقيقية waxay ka dhacday Sacuudiga ayay ka dhacday meesha Faysaliya la yiraahdo Riyaad ku taala ayay ka dhacday qisadaasi waa haweeney meesha Faysaliya la yiraahdo Riyaad waa meel aad u qurux badan qalab qaaliya lagu iibiyaa inamada iyo hablaha ayaa isla soo doonto oo meesha yimaada gabadh baa maradeeda khafiif ka dhigatay inta yar laabta ay qaawisay waa Sacuudi Arabiya ina sheekha meesha soo galay gabadhii baa waxa uu ku yiri na ilaahay ka cabs law jaa'aka malakul maut maada taf'alin hadduu malakul maut ku yimaado adiga oo sida laabtaada u qaawiyay oo rag sida ku daawanayaan maxaad yeeli buu ku yiri inta qosashay ayaa waxay tiri boortaabalka rabbiga u garaac oo telefoonkaygano waxaad ku tiraahdaa malakul maut-ka ha keeno boortaabalka rabbiga u garaac telefoonka rabbiga u garaac waxaad tiraahdaa malakul maut keen yarkii wuu naxay isagoo argagaxsan buu ka baxay meesha waxa uu yidhi albaabka maan gaadhin wallaahi alcadiim ilaa waxaan maqlayaaba qaylo wala qayliya waan soo noqday bil maxaa dhacay waaba gabadhii oo wejiga u dhacday oo dhimatay way dhimatay xaggii isla markiiba meeshii bay naftu kaga baxday waxa uu yidhi markaan arkay in iyadii ay tahay ayaan dadkii u sheegay oon idhi wallaahi alcadiim iminkaan u naseexaynayay gabadhan oo hadalkaas ay tiri ilaahay waa kaa qabtay waxa uu dadkii way ooyeen meeshiina way ka baxeen iyagoo ooyaya qisadani waxay dhacday bishii Shacbaan 1421 hijriyada nabiga calayhi salaatu wasalaam ree Faysaliya dadka ka shaqeeya oo loo wada garanayaan qisada iyada u dhacday ilaahay waa naxariis badan yahay addoonkiisa waa u kaadiya rabbi subxaanahu wa ta'ala laakiin maalinka uu qabto